waxaana la jooga oo marti noo ah Fahad Yaasiin. Fahad Yaasiin soo dhawo. waa dhawahay waan ku faraxsanahay inaan maanta la joogo. magacaagu waa Fahad maxaa ku raaca? aniga waxaa la yiraahdaa Fahad Yaasiin Xaaji Taahir. waxaan ku koray qoys diineed inta aanan ka gudbin Fahad Yaasiin. dhawaan waxaa la shaaciyay Fahad Axmed Daahir iyo Fahad Yaasiin ma farqiga u dhaxeeya waa maxay? labada magacba waa jiraan. Fahad Yaasiin wuu jiraa, Fahad Axmed Daahirna wuu jiraa. marka dokumentigu waa sida Fahad Axmed Daahir igu qoran, laakiin qoys ahaan Fahad Yaasiin baa la yaqaanaa. magaca Fahad iyo Yaasiin waa isku hal qof. waa magacyo israaca waay oo la wada yaqaan. oo hal qof oo Fahad la yiraahdo Yaasiin la yiraahdo. ma Soomaalidu dhammaan taqaana magac qoysna waa leeyihiin, magac dokumentiga ugu qoranna waa leeyihiin. laba magac la tahay. magac saddexaad inuu jiro waa dhici kartaa. markaan yar Cabdiraxmaan baa la dhihi jiray. koritaan ahaan waxaan haynaa inaad ku barbaartay gobolka Gedo, halkaasna aad ku hana qaaday. dulmar kooban ku sabay koritaankaaga. aniga marka koowaad waxaan dhashay 700 bartankeeda ama aakhirkeeda u dhow. waxaan ku koray qoys diineed. waxaan ahay hooyo koris. ayada ay barbaarisay, ayada ay korisay. wayna nooshahay ilaahay cimrigeeda iyo caafimaadka uu hawsiyeeda iyo labadaba. yani waxaad ku kortay agoon? agoon kuma korin, laakiin waxaan ku koray hooyadayba ay korisay. marka way jiraan ilmo hooyo korisay iyo ilmo aabba koriyay. aabbahay wuu noolaa, wuu caafimaad qabay, laakiin duruufo jiray dartood markaasuun hooyo koris baanahay. sidii aan Soomaalidu baa taqaanaa in badanoo ka mid ah hooya korisay. noloshayda intii aan guulaystay, intii aan wax qabtay, intii aan wax bartay, intii aan noolaa, ilaahay ka sokoo qofka aan uga hayo abaalka tarbiyada iyo talada iyo ducada waa hooyaday. yaraanteedii baan qur-aanka bartay. waxaan u malaynayaa anoo 10 sano ka yar inaan qur-aanka xifdiyey. markii aan ahaa 13 jir, Soomaalidu waxay taqaanaa wax la yiraahdo kabiir baan dugsi qur-aan ka noqday. kabiirnimadaas waxay keentay inaan markii dambe u gudbo inaan macallin qur-aan noqdo. intii aan 15 jirayna macallin dugsi qur-aan baan noqday. cimrigayga ugu yaraan 9 sano 11 sano ku dhow waxaan ku mashquulsanaa oo ka shaqeeyay macallin dugsi qur-aan oo aan dad waaweyn qur-aan baray. dadka hore waxaa la dhihi jiray dugsi hebel buu kiciyey. laakiin marka baadiyaha la joogo, magaalada marka la joogo, dad ba qur-aan la baraa, waa loo dhameeyaa, haddana kuwa kale la baraa. yani Fahad waa macallin dugsi qur-aan waa soo maray. nolosha igu bilowgeedii waxaan ka bilaabay dugsi qur-aan inaan macallin ka noqdo. waxaana aaminsanahay in noloshaydu inay guulaysato ay laba shay asaas u tahay: waalidkay oo hooyaday kow ka tahay, iyo noloshayda inay qur-aan ka soo bilaabatay. 9 sano ku dhawaad oo cimrigayga marna isku jir waxaan ahaa imaam masaajid oo salaada si joogsan salaad tujinayay, taraawiixdana tujinayay, sidoo kalena macallin dugsi qur-aan ah. dugsigaas iyo masaajidkaas xagee ku yaala? meel kala duwan ku yaalay. Kenya ku yaalay, Soomaaliya ku yaalay. xataa markaan jaamacadda dhiganayay, jaamacadda waxaan ka ahaa macallin qur-aan. waa mahadsan tahay. da'daada koraynimo intii aad ku jirtay waxaad u safartay Yaman, ma jirtaa? Yaman waan ku soo waday. waa markii dambe oo aan waxbarashada qaybteedii jaamacadda aaday. jaamacad la yiraahdo jaamacad al-Iimaan, ardadii ugu horeysay oo sanadkii labaad markii jaamacadda la aasaasay dhigatay baan ku jiray. jaamacadda muddadeedii waa dheeraa, ma aanan awoodin inaan dhammaysto. sanado maxduud ahaan dhigtay oo taas igu kaliftay marka inaan mar dambe. maxaad baratay marka? waxaan bartay maado isku dhex jirta, waxaa la yiraahdo culum insaaniya. marka maadooyin shareecada islaamka ah iyo maadooyin taariikhda, psychology-ga, cilmiga bulshada, juqraafiga isku dhex jira. waa kulli mana aadan dhamaysan insaaniya. ma aanan dhamaysanin, qayb kamid ah aan dhigtay, laakiin jaamacad kale mar dambe ka dhamaystay. kasokow in waxbarashadaadu ay qoys diimeed ka soo jeedo oo sida dadka Soomaalida in badan oo kamid ah ay ogtahay ama siyaabo kala duwan loo wariyo, haddana aad sheegtay in qoys diimeed ka soo jeedo. Yaman maxaa kale ka soo qaadatay oo dhaafsiisan waxbarashadaas jaamacadda? xerow baan ka noqday. waxyaabo diinta kutubada qaar waa culumaan ka akhristay. waxaan xaadiray muxaadarooyin culimo waaweyn oo adduunyada ka mid ah sida Sheekh Muqbil Haadi Alwaadici, Sheekh Maxamed Xasan Daddo oo hadda caalim weyn oo Mauritania. sharaf weyn ay ahayd culimadaas waaweyn inaan arkay ayagoo muxaadareynaya. waxaad ahayd xerow salafiya
oo culimadii kala duwanaa ee Yemen joogay ee fikirka salafiga islaamiga aaminsanaa ka soo tacadufay fikirka salafiga waa ku koray aniga waxa xataa aan doortay ma aha markaan aqliyeystay hooyaday way xijaabneed Fahad waa wariye inta aanan dhowr su'aalood oo kale aan u gudbin Fahad ma leeyahay xirfad kale wariyanimo xirfadeeda kale waa macallin quraan wariyanimo iyo macallin quraan xirfad kale ma jirto xirfadda saddexaad waa siyaasad hayaanka wariyanimada isaga goorma soo bilowday waxaan ku galay waxaan la yiraahdo afka carabiga lagu dhaho hiwaaya dookh inaan jeceshahay 1996 95 aakhirkiisii baan bilaabay artikalo qoraalo yaryar inaan qoro labadii kun markii la soo gaarayna waxaan bilaabay inaan Somali Talk website la yiraahdo aan ka mid noqdo dadkii wax ku qori jiray muddo 6 sano ku dhawna editor baan ka noqday website-da Soomaalida kuwa ugu horeeyay ugu saameynta badnaa buu ahaa cases fara badan difaacay oo sabab u noqday inay Soomaalidu ku baraarugto ay ka mid tahay case-kii badda artikalo joogta baan ku qori jiray oo isniinlaha Fahad iyo isniinta la dhihi jiray oo siyaasadda ku faaleyn jiray ka bacdi waxaan noqday waxa la yiraahdo freelancer wariye xor ah oo aanu noqday BBC-da Carabiga telefishin al-caalam la yiraahdo ilaa hadda jiro Iran ka shaqeeya idaacado fara badan oo ajnabi ah joornaal carabi aan wax ku qori jiray sida Quds al-Arabiya Sharq al-Awsat laakiin freelancer ma qasana waxaan u ahaa freelancer 2 sano ku dhawaad shirkii waxaan ka fargareeyay Suudaanta ay ku wada hadlayeen Neefasha oo ay ku wada hadlayeen koonfurta Suudaan iyo Suudaan ay ku dhamaatay markii dambe heshiiskaasna uu dhalay in Suudaan koonfurta ay ka goosato si iyadoo heshiis lagu yahay muddo 2 sano ah BBC-da Carabiga freelancer u ahaa dadkii aad wada shaqaysteen mihnada saxaafadda waxay sheegeen inaad ahayd nin qoraa ah intii aad ku jirtay sida aad sheegtay Somali Talk ayaad wax ku qortay oo muddo dheer faalada isniintii Fahad ka shaqaysay telefishin laba telefishin oo kale waad sheegtay qoraal dambe ma qortay oo aan ahayn xilligii saxaafadda ee aad halka ku qori jirtay cilmi baaris aan qoray markii aan saxaafadda ka wareegay TV inta aan cilmi baarista aadin ma waxaan ku qori jiray oo markii aan heshiis shaqada Jazeera bilaabay waa mamnuuc inaad qorto qoraal contractiga ku jirta qoraal ra'yigaaga ma qori kartid qoraalada aad kaydisay ee ku jira maanta baraha kaydka xilliga aad ku qortay Somali Talk oo soo qaadanay faalada isniinta waxa ku jira maqaalo siyaasadeed oo ka hadlayay xilligaas marxalada taagnaa waxa kamid ahayd soo galitaanka ciidanka Ethiopia ee Soomaaliya waxa kamid ahayd doorashadii dawladda ku meel gaarka ahayd ee Kenya lagu soo dhisay oo aad ahayd wariyaashii tabinay qoraaladaas maanta marka aad aragtid adoo siyaasadda soo galay meel mustawa sare ka soo gaaray dadka Soomaaliyeed loogu hadalhay ma yahay kamid noqday qoraalada marka dib u akhriyay maxaa dareentay waxa kale oo aan marka kugu sii raadinayaa oo ku sii raacinayaa qoraalada kuwa Ethiopia ku saabsan maantay dawladda aad la shaqeynaysa xulafo dhow bay lahayd maxaa dareentay marka waxaan dareemaa inaan aniga ahay wali wax isbedel ma dareemo Ethiopia shalay inay cadow ahayd maantana ay saaxiib iyo xulafo dhow la tahay waxa kala duwan marka aad kaliya fakarayso oo aad qol intaas ku soo xirto ra'yigaaga si xor u sheegaysid iyo marka aad masiir umadeed ka fikiraysid halka aad masiir umadeed ka fikiraysid waxyaabo fara badan ku xukumaya waxyaabo fara badan ku xiraya Ethiopia laftigeedana isbedel baa ka dhacay Ethiopiyadii oo markaas aan nocolka ahayn wadanka soo weerartay dhibaatada u geysatay xukunkeeda meesha waa ka baxay Ethiopia cusub baa timid marka mowduuc gaar hadda ay weydiinaysid ma ogi laakiin wax ra'yigayga iska bedelay ma jiro intii aad ku jirtay saxaafadda saaxiibo badan oo saxaafadeed ahayd oo Soomaali ajaanib kulli isku jirta siyaasadda ma soo digargotay bas saaxiibadaadii saxaafadda halkii baad ku xirtay hadii dabcan kala shaqaan noqonay qaarkood oo shaqadoodii ku hareen anigana siyaasadii waxay ku qasbaysaa dad cusub baad la shaqeyn doontaa laakiin xiriirkoodii waa hayaa dadkii wanaagsanaa oo saaxiibka ahayn wali saaxiib baan nahay qaarkoodna siyaasadda ila soo galeen ba madaxda ugu sarreeyay dalka saxaafadda ay ka wada shaqeynayaan oo hebel iyo hebel aan ku dhigi karo Fahad wariye qoraal kaliya baahiye ayuu ahaa warbaahin caalami ayuu ka soo shaqeeyay maxay tahay sababta marka uu xilka yimid uu uga dhuntay warbaahintan aqaana marka qof warbaahinta yaqaan kuma cararo warbaahinta anuguna markaas dawladda afhayeen ma ahayn uma qaabilsaneen madaxtooyada afhayeen kama noqonin hay'adii aan ka shaqeynay afhayeen uma noqonin
sanad iyo xoogaa madaxtooyada aan joogay wixii ka dambeeyana waxaan u wareegay hay-ad sasantiif ah hay-addaasna neejarkeedu sida aan u shaqaynayay baa sax ahayd warbaahintaan aqaanaa maxaa ula jeedaa warbaahinta aqoonta qofka u leh kuma degdego waa wax ummadda nacfigeedana qayb ka ah dhibaatana mararka qaar gaarsiin karta marka neejarkii hay-adihii aan ka shaqeeyey wali waqtiga ugu badnaa hay-adaha amniga aan ka shaqeeyey taas waxaan weli aaminsanahay qof kasta oo sirdoonka qaranka madax ka noqda inuu iska ilaaliyo warbaahinta is aruuriyo si xogtiisa iyo waxa uu ka shaqeynaya u asturaadaan adduunyadana saasay u badan iska ilaaliyo ma waxa loo jeedaa inuu la dagaalamo wallaahi haddii arikoorka hay-adda nabad sugidda intaan joogay baarto wariyaasha lamaanan dagaalamin waa soo dhaweynay saaxiib baan laakiin xogta inaad ka xadideen ama laamaha amniga guud ee dowladda ha ahaato weliba aragtida adiga ay kaa imaanaysa ayaa in badan la sheega oo aan ogaanay dad kala duwan oo xog raadiya warbaahintu marar badan ka cabatay xogta helitaankeedii adigoo la rabay inaad wariyo tahay soo dhaweysatid saaxiib dhow ay kula noqdaan wariyaashu maadaama aad tiimkaa ka mid ahayd sidaad horey ugu sheegtay see u aragtaa eedaynta noocaas wallaahi kaftan waxaa jira aan sheego ah markii aan warbaahinta joogay waxa aan maqlo waxaan ugu dhibsanayay marka aan sirdoon maqlo waa ka carari jiray markii aan sirdoonkii soo aadayna saxaafadda waa ka cararnay waa run hadalkaas laakiin labada neejaroo shaqada kala duwan wariyuhuna war buu raadiyaa sirdoonkuna sir buu qariyaa marka shaqadeeda waxay tahay wixii sira inaan qariyaba laakiin hadday rabaan inay war helaan dee wasaaradda warfaafinta jirta wasaaradda arrimaha dibadda jirta hay-ado ku shuqulay warka u doontaan baa jira laakiin doodda ah inaad adigu aliftay maskaxda ah in xogta dowladda la koobo oo warbaahinta laga ilaaliyo oo la faaf reebo ilaa herkee eedayntaas ka joogta maya waxaa la isku qasayaa inaan aniga warbaahinta iska gaabiyey shaqadii aan dalka u ahaya darteed iyo dowladdu inay warbaahinta iska gaabisay waa laba doodood oo kala duwan meeqa sano ayaadan weligaa waraysi ma bixisay waraysi waa qaadi jiray laakiin waraysi aan bixiyo maraan idaacad waraysi siiyo waa u maleynaya inay hal mar ahayd mana xusuusto sidan oo kale aan u joogno laakiin waraysi TV ah oo ama aniga la wareysanayo kana u horeeya الجزيرة intee sano ka shaqeynaysa qaybta wararka marka laga hadlayo isku dar jazeera dhan waa network wala lahaa jazeera shabakad aljazeera waxaan u shaqeeyay taqriiban 12 sano oo xiriir ah waxaan ka soo bilaabay wariye waxaan ka soo bilaabay inaan noqdo madaxa xafiiska aljazeera ee Soomaaliya haddana waxaan noqday madaxa xafiiska aljazeera ee geeska Afrika 7 sano ka bacdi ama 6 sano iyo bar ka bacdi waxaan u wareegay qayb kale oo aljazeera ka mid ah leeyahay markas jazeera lidaraasad oo qaybta cilmi baarista ah oo markii u horeysay la sameeyay in Afrika gaar ahaan bariga Afrika aan aniga wakiil uga ahaa cilmi baaris xoog leh baan sameyn jirnay qaarna aniga aan qori jiray qaarna aan dad u xilsaaran jiray هذا إلى heerkaas inaad noqoto qofka Afrika laga qaato macadka cilmi baarista ee aljazeera aaminaada heerka leh fahad muxuu ku kasbaday waxaan la mid ahay dadka kale aljazeera u shaqeynaya meel qof aljazeera dalacday kaliya dalacday laakiin Afrika Soomaali marka laga hadlayo Afrika laga sii hadlayo waa qofka kaliya ee aljazeera ah ila mustawaha Soomaaliya waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo aljazeera u shaqeeya qofkii ugu horeeyay oo aljazeera u shaqeeya anigu ahaa maybe la yaabal mariyay shaqadeeda ay fiicneed wariye ilaa iyo cilmi baaro shaqeeyay TV-ga aljazeera ayaa noqotay kadib dawladda Qatar aad ayay kugu kalsoonaatay waxaana noqotay qofka ay kala hadasho malafkeeda ama arrimaheeda ku wajahan Soomaaliya warkaasi ma runba waa goorma ka hadlaysaa markaan wariyaha miyaa ka hadlaysaa mise markaan siyaasadda soo gala ka hadlaysaa wariyanimadaadii markaan ku koobno siyaasadda waanu aadi doonaa laakiin wariyanimadaadu waxaa noqotay geedka albaabka dawladda Qatar marka ay doonayso inay ka ogaato macluumaad kala duwan xaalka Soomaaliya iyadoo ay dawladihii dhisan yihiin ama ku meel gaar ah ama dawlad joogta haate qofka la xiriiraya inuu fahmo noqdo saameyntaas sidee fahad ku keen ani ma aqaan xogtaas meesha ka heshay dawladda Qatar aniga waxaan kala shaqeynayay aljazeera ee dawladda Qatar iska leh ayaga maalgeliso hadda kooban diblomaasi weydiiyay waxaan ku iri inta wariye CNN u shaqeeyo masaafada u jiro dawladda Mareykanka baan u jiray dawladda Qatar marka cidaan u shaqeynay aljazeera ahayd not dawladda Qatar aljazeera dawladda Qatar iska leh hadii CNN ba Mareykan ba iska leh marka qofka CNN u shaqeeyo dawladda Mareykanka u shaqeeya waxaan ma jiro xiriir fahad iyo dawladda Qatar intii wariyaha ahaa ka dhaxeeyay oo ay u soo martay arrimaha Soomaaliya
iyadoo aan dawladdii Soomaaliyeed soo marin isaga soo wakiilay hal qof oo mas'uul ah dawladda qadar ka tirsan ilaa dawladda Soomaaliyeed aan mas'uul ka noqday lama kulmin weligay lama kulmin waxaan la kulmay waxay ahayd Aljazeera iyo cidda madaxda ay ah xuduud kale oo ma gudbeenin waxaan u maleynay ayaga laftigoodana wariye oo ma baahnaynba way haysteen mechanism kale wax ku raadsadaan fulinxantis ma mooga daad Yaasiin yaraantaadii ma ka mid noqotay dadkii ku tababartay macskaraadka iyo xeriyihii military ee kooxaha islaamiyiinta Soomaaliya lahaayeen tababar nooca ah military ma kooda ma weligay ma galin macskar xerowga marka ahayd xilliyadii 90aadkii oo Soomaaliya saxawaadku aad u soo kobceen ay doonayeen xukunka Soomaaliya in loo bedelo islaami inaad ka mid noqotay ma jirto qaybta aad weydiinayso waa mucaskar iyo tababar weligay ka mid noqonin xera military ma galin xera tababarna ma galin weligayna ka dagaal ma galin markii wariyaha aad noqotay ama qoraal ha ahaato ama muuqaal ha ahaato ama imaadaba xilligii muqaawamada aad baa u firfircoonay dhiig badan baa u haysay dagaalkii socday ee Itoobiya looga soo horjeeday maxay ahayd waxa goonida xiriirka ku riixay shaqada wariye aan ahayn qadiyad ahaan baan u rumaysnaa ciidanka Itoobiya dalka Soomaaliya yimid inay ka baxaan sida darteed xamaasad dadka ka badan baan u hayay marka wariynimadeyda waxa shaqadeeda ka mid ah inaan dalkayga ku difaaco marka xilligaas dalka xaqiiqada sheego markaas laakiin dalkaaga difaacaysa waxaad aaminsanaynahay taa xuduud dalkiisa la mid ah sida ninka dagaalamaya xoog dirir oo qori qaadanaya ma ahayn laakiin wariynimadeyda waxaan ugu adeegayay ummadda Soomaaliyeed ciidanka ajnabiga ee u yimid inay ka baxaan waana u taagnaa wayna dhamaatay markii aad wariyaha noqotay xiriirka kooxaha islaamiyiinta aad la siyaaratay ilaa heerkee gaaray hada su'aasha sida u dhigaysa ma aqaano wariye waa inuu xiriir la yeeshaa cid kastoo niyo samayso si gaara kooxaha islaamiyiinta ee Soomaaliya islafiga ee dagaalamay ee aaminsanaa ma inta aniga wariyaha salafiyadu awood military ma lahayn marka aan wariyaha noqdo caalamiga noqday oo wariyaha Aljazeera aan gaaray salafiyadu awood ma lahayn hada maxkamadaha u jeedo ma ogi xilligii ay Soomaaliya al-Ittixaad al-Islaami ka hirgashay ee ay xoog lahayd ee ay gida meel ka mid ah maamulisay ee ay qow iyo boosax saldhig military ku lahayd ma ka mid noqotay al-Ittixaad al-Islaami su'aasha xoogaa sida u dhigaysa khalad yar baa ku jira xilligii ay isfaafinayeen ka mid noqotay oo mucaskaraadkaasi waxaas ma gashay mise Ittixaad ma ka mid noqotay laba su'aalood bay kala tahay marka taa ay weydiinayso ma ka mid su'aasha hore mucaskaraadka waad ka soo gudubnay waxaan ku weydiiyay ma ka mid noqotay al-Ittixaad al-Islaami al-Ittixaad al-Islaami waxa ka guda weyn salafi horta manhajka salafiga ah waan ku barbaaray waan ku koray tarbiyadeedii qayb ka mid ah waaye kutubadii u horeysay oo akhristay ayagay ahaayeen waana hadaaya ku yiri markaan aqliyeystay hooyada iyadoo xijaaban baan aqliyeystay marka ururka al-Ittixaad al-Islaami wuxuu ka mid ahaa ururadii ugu waaweynaa dalka jiray jiilkii dhalinyarada ahaa markaas soo kacday badankoodu waxay ku biireen ururada islaamiga ah ama xarb ay u noqdeen aniga waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-Ittixaad al-Islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare waliba ka gaaray وانا كفانا الى حقيقات درجان marka laga hadlayo al-Ittixaad al-Islaami nidaamkooda sidoo u dhisan yahay waa very complicated hadda ma ka gaar inaan sharxo laakiin waxaan gaaray inaan noqdo waxa la yiraahdo ra'iis iqliim gobol inaan madax ka noqdo gobolkee ah gobolka madax ka noqdo ma raba hadda inaan sheego al-Ittixaad al-Islaami way burbureen hubkana way dhigeen waxayna noqdeen urur silmi ah oo si siyaasadda iyo iqtisaad dhaqaalaha iyo waxbarashada siyaabo kala duwan maamula waxyaabaha ugu weyn maamulana dhaqaalaha ayaa kamid ah siyaasadana saameyn ku leeyahay ma jirtaa marka kadib al-Ittixaad al-Islaami inay ka wareegeen magaca al-Ictisaam bigtaag oo sunna ay aadeen kamid noqotay xarakadan dambe al-Ictisaam dambe lagama mid noqonaynin xubin ahaan يعني نين والبا oo Ittixaad xubin ka noqday laakiin golashu waxay leedahay golo fulineed ay leedahay maya yani waxaan u jeedaa qof kasta oo Ittixaad xubin ka aha markii magaca la bedelay magacaas uu guuri marka aan Ictisaam kuma biirin ee ururkii ba guurayba wuxuuna ka yimid urur tajamuc la yiraahdo oo qoyga Soomaaliya ka jiray iyo al-Ittixaad al-Islaami ba isku biiray labadoodii markay isku biireen ba waxa ka dhashay magac cusub oo al-Ictisaam la dhaho markaas ka bacay dad badan baa ka baxay oo urur kala furmay kooxo kala soo biiray ay kamid yihiin kooxaha maanta saxwaadka jooga Soomaaliya jooga Islaamiinta markaas aduu meel dhexe istaagtay labada dhinacna kuma dhinacyada kala duwan dhinacna kuma biirin
maya maada fahmin waxaan ku yiri aniga itixaad baan ku beeray itixaad iyo tajamuc baa isu yimid ictisaam bay la baxeen su-aasheedu waxa weeye ictisaam ma ka mid tahay maanta mise ka mid tahay hadda su-aasha ma furnaba ururkii aan ka tirsanaa baa ictisaam noqday marka ma waad ku jirtaa hadda ma ku jirtaa iyo kuma jirtaa uma baahnid fahad hiwaayadiisu waa maxay hiwaayadeeda waa akhris inaan wax akhriyo inaan wax barto mar walbana serious ahaado mar walba serious inaan ahaado mar walba jaad baan ahay nolosheeda oo dhan marka wax badan oo dadku ay ku mashquulaan mana jecli mana ku mashquulo heesaa ma dhegeystaa maya ma dhegeysto banooni mana cayaarin weligay allahay weliga banooni ma taabo weligay ma cayaarin ma dee jid anaa marayo lugta ku dhufta ma garanayo laakiin banooni uma labisanin ma daawanin weligay ma daawanin shaleemana weligay ma gelin markaad rabto inaad jaanis haysatid oo nasatid intii siyaasadda aad ku jirtay maxaa ku nasataa waxbaan akhriyaa ama buug baan akhriyaa ama artikalaan akhriyaa waxbaan akhriyaa waxaan ugu jeclaa ku raaxaysto waa akhris buugta aad akhridid kuwa ka hadlaya hogaaminta siyaasadda yaa ka soo dheegataa waxyaabaha ugu badan oo aan akhriyay aniga waa taariikhda marka weliba taariikhda islaamka aan ugu jeclahay siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam taariikhda islaamka kusoo xigtay dowla alcabaasiya dowla alcuthmaaniya dowla alumawiya tarbiyada ugu wanaagsan oo siyaasad laga dheehan karan waxaan u haystaa inay tahay taariikhda islaamka fahad aad buu isu qariyey 10 sano ee la soo dhaafay marar dhif iyo naadira oo sawirro laga helo mooyaane aad ay u adag tahay in la ogaado ama ay adkaatay sawiradiisa oo fasaxa iyo muuqaaladiisa iyo wareysiyadiisa in la arko maxaa ku dooratay inaad isqarisid inaan banaanka usoo baxo muhiimad ay leedahay ma garanayn haddayna waan kuu sheegay hay-adda sirdoonka aan u shaqaynayay weli waan aaminsanahay qofka hadduu sirdoon yahay inuu is aruuriyo intaadan sirdoon ka noqon ka hor ayaad go'aamisay inaad dhammaan isqarisid sooma maya haddii ani dowladda waxaan u shaqaynayay 5 sanaba ka hor dowladda ma shaqaynin ka hor laakiin markaaga hore sawirada iyo macluumaadkaaga way koobnaayeen sooma 10 sano ay ugu dambeeyay soo aniga wariyaha ahaayo 4 saac jaziira ka hadli jiray oo 4 saac wareysi qaadi jiray oo mar walba TV-ga live u soo gali jiray markaas ay isku qariyay baraha bulshada ma isticmaashaa socialka weligay ma furanin weliba fursad fiican aan uga faa'iideysan karo account Twitter oo aniga aan leeyahay ma jiro account social media oo dhan Facebook aan leeyahay ma jiro weligayna ma furanin wax kasta oo social media oo magacayga ku qoran oo munaasabad fiican aan uga faa'iideysan karo aniga mali weligayna ma furanin ku tala jirtaa hadda afrat ilaa hadda fikirkayga wuxuu ii sheegayaa inaan furanin waxaan aaminsanahay qofka maskaxdiisa inuu asaga maamusho maskaxdaadu haddii dad kale kula maamushaan waa khatar weyn sidaa darteed social mediaha dadka weliba waxaan dhahaa ha ogolaanina in maskaxdiinu shirka noqoto guri furan oo cid walba soo geli karta inay noqoto fahad dadka Soomaalida dad badan ayaa jecel inuu u noqdo qof ay ku daydaan tusaale ahaan marka laga hadlayo qof saameyn badan ama dawlad ha ahaato ama ha ahaato sida uu u dhaqmayo iyo sida marar badan iyadoo aad loo dhaliilayo loo maagayo waxa badan laga haddana qarsada oo aamusa maxay tahay waxa aad adeegsatid ee gaarka siyaasiyiinta kale ee Soomaalida maanta markii la dhalay Brito ala siyaasiyiin ka jawaab adiga laakiin aamuska maxaa ka faa'iido wallahi dee waxa suuragal ah stiil khibradan saxaafadda u leeyahay inay tahay in la iska daba qayqayli waxa ma soo kordhinayso waxa fiican hadalkaagu inuu munaasabad leeyahay waqti uu ku aadan yahay waqtigaasna uu nacfi u leeyahay qodobka labaad aamuskayga aniga ma ahayn waxa ani kaligay doortay shaqadeeda qayb ka ahayd marka nin sirdoon oo shir jira ay taagan waligeed lama arkin Soomaaliya ka dhici jirtay wax saxana ma ahayn in aan aniga idaacad soo istaago oo aan ka hadlana munaasabadeedii ma hayninba chief staff marka aan madaxtooyada afhayeen bay lahayd marka ma jirin sabab in aan soo istaago aan idaacadda ka hadlo waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo qaybta ku saabsan waa kuma Fahad Yaasin su'aasha u dambaysa aan rabaa inaan ku weydiiyo waxa waaye dad badan oo Soomaaliyeed hadday isku dayaan ama dhalinyaro in Fahad uu yahay qof ay hiigsanayaan maxaa kula talin lahayd saddex shay baan kula talin lahaa marka koowaad hadafkooda iyo shaqadooda inay islahaato hadafkay u socdaan iyo shaqadooda inay islahaato midda labaad moralkooda
damiirkooda iyo shaqadooduna inay islahaato midda saddexaad waalidkiisa inuu ka ducaysto hadday nool yihiin su-aal kale ayaa igu soo laabatay waxaa lagu sheegaa nin run badan aamin ah ka go-naansho leh saxda wallaahi aniga waa sax ma dhihi karo laakiin waa dadaalaa intaan ku dadaali karo waa dadaalaa qofkii aan siyaasad ku ballanno inaan ilaaliyaan isku dayaa waqti badan geliyo xataa haddaan ogahay inaan ku khasaarayo waan raacaa ballantii aan ballan waa inay ugu dhacday marar fara badan dan dad ballan la galay siyaasad la galay anoo og in meeshaas inaanan ku guulaysanayn laakiin shakhsiyaddeeda inay ii soo harto waa meesha aan ka dhaho marar badan siyaasadda iyo qofnimadaada iyaysan iska kaa raacin qofnimadaada ha ku harto aad baad u mahadsantahay Fahad Yaasiin qaybtii ku saabsanayd waa kuma Fahad Yaasiin waan su'aalo badan kaa weydiiyey haddaad ii ogolaatid waxaan jeclahay inaan ka gudbo fadlan una gudbo qayb kale oo ah siyaasadda iyo soo biiritaankaaga su-aasha koobaad Fahad goormuu siyaasadda ku soo biiray wallaahi waxaa jira dee theory la dhaho saxafiga iyo siyaasaddu waa daris adiga hadda siyaasadda masaafiyar baa u jirtaa marka wixii aan ka shaqaynayno oo warinaynay oo dhacdooyin siyaasadeed ahayd haddii intii siyaasadda Soomaaliya ay socotayna badankeed waa ku dhex jiray mar article baan ka qorayay mar waa warinayay mar siyaasiyiintan la joogay laakiin hadday tahay xil dawladeed goormaan qabatay 2017 baan qabtay oo shaqo dawladeed soo galay markii kuugu horeysay oo si toos ah aad siyaasadda ula soo fargashid ama waxa Soomaaliga loo Soomaaliyeeyay saamilayda siyaasadeed goormay ahayd waa doorashooyinkii u dambeeyay dalka 2012 September waxa la doortay Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii ugu horeysay ee Muqdisho ka dhacday waxaan ogaaday macluumaadkuna ay xaqiijiyeen inaad ka mid ahayd dadkii Xasan Sheekh ku qancay inay soo dhisaan oo madaxweyne ka dhigaan oo ololahaas qayb ka noqotay sax miya ololihii madaxweyne Xasan Sheekh 2012 qayb baan ka ahaa lacag aad ka soo qaaday dawladda Qatar in Xasan Sheekh Maxamuud la siiyay oo madaxweyne uu ku noqday 2012 ayaan haynaa macluumaad la xiriira saxba isma inaad ku qancisay dawladda Qatar inay taageerto madaxweyne Xasan Sheekh si uu madaxweyne u noqdo ma wax xaqiiqa ma waxba oo markaa wariyaan ba ahaba marka uma baahnayn ba lacag laakiin waxaad ka mid ahayd kooxda ololaha madaxweyne haddii ololaha waxaan uga noqon karaa maskax waxaan uga noqon karaa connection waxaan uga noqon karaa dadka inaan u qanciyo u sheekeeyo oo saaxiibo u abuuro laakiin warbixintaas wax faafay waa Soomaalida dhexdeeda ku faafay xaqiiqana kuma dhisna totally wax ka rub gabiyan war faafay oo aan salary raad lahayn waa ma jirto hadda waaba ku ireey war faafay oo salary raad lahayn waa mana u baahnayn ba 2015 waxaad iska diiday xil wasiirnimo waa lagu magacaabay ra'iisul wasaaraha ku soo magacaabay wasiir baa lagu soo magacaabay waa ka cudud daaratay ayadan baarlamaanka la gaaray maxaa u cudud daaray markaas dawladdii jirtay inta aanan wasiirka la magacaabin anoo waliba ku ixtiraamaya kuna qadarinaya inay wasiir ii magacaabeen wasiirka dekedaha la magacaabay xukuumaddii waxay ahayd ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid xilligaas qanaacadeeda siyaasiga ah iyo qanaacada dawladda markaas jirtay isma waafaqsanayn marka waxaan diidanaa wax damiirkayga iyo qalbigayga iyo qanaacadeeda aysan raalli ka ahayn inaan ka mid noqdo saasaan uga cudur daartay si ixtiraam leh oo asturan baan uga cudur daartay imaanshihii madaxweyne Xasan Sheekh ee 2012 waxaa la bilowday kelmad la yiraahdo mulkiilaha dawladda dad badan waxay qabaan inaad ka mid ahayd mulkiilayaashii dawladdaas dadkii wax ka dhistay waliba kuwii foolaadka ahaa sidaan hore kuugu sheegayna dawlado kale cilaaqaadkood ama malafkooda hayay waliba xilligaas mas'uuliyaddaadu ay dawladdaas Qatar dhankeeda ka timid iyo saameynteeda taas ma sax baa mise waa qalad والله ده أنا واحد كم ده دنياردي الصوماليات مدحونا حسن الشيخ لبكون لبيه طبعا قرب استاجي هو جان كيس أقبل سنة إنه ضلك هو جامي كشقيني دور كأن كلها نواك قتي لكن إن عاد مرضى مسقوتين يا شرتي وزير نوذا السياسات كنت جدي سان حكتك هايو منو شيء كرتها هل يلا بق وحيابها قناع على أنت كوغن عموي دي مركز دم بين الدولة دي كم نقطة مركز هنا دت كي لسه كم نقطة والله هذا ما دام أي تهم مرحلة لصور ضعفي سنة بدان أي كسو وريجين إن الهوس وجود الدجا مرة
laakiin si kooban baan ku iraaday qanaacadeeda siyaasiga ahayd iyo damiirkeyga iyo habkii dowladnimada markaas loo maamulayay baa kala duwanaa sidaa darteed waxaan ku sameeyey insixaab waan ka dhexbaxay madaxweyne farmaajo inta uusan madaxweynaha noqon xilliga xasan sheekh xukuumaddaas aad wasiir ka diiday inaad ra'iisul wasaare la raadisay oo la u gashay in la magacaabo ay suuro gali weyday sidaa kadibna aad xukuumaddii uga baxday taas ayaan haynaa maxaad ka leedahay markaas waxay ahayd turkii koo madaxweyne xasan sheekh la doortay dadkii madaxweynaha u dhawaa qofba qof buu ra'yi qabay oo taladii ra'iisul wasaare madaxweynaha la siinayay qofba wuxuu qabay hebel ra'iisul wasaaraha ku haboon hebel baa ku haboon waa sax waa kamid ahaa dadkii aniga kaliya ma ahayn dhowr qof baan ahayn qabay in markaas ra'iisul wasaarihii hore buu ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynuhuna kuma qancin xaq baan u leeyahay inuusan ku qancin laakiin ka bacdi waa la sii shaqeeyay halkaa kama soo bilaaban kala tegina siyaasiga waa laga yaabaa inay ka bilaabatay waxa la dhaho dhibic yaroo madow inay ka bilaabatay waa laga yaabaa laakiin ka bacdi waa wada shaqeynay waa ka xaala arrintaas waana wada shaqeynay adoo ku qanacsan in farmaajo anigana ra'yi un baan lahaa go'aanka isaga iska lahaa farmaajo markaas waad u ololaysay xaggee ka soo bilowdeen siyaasadahan isbarashadeena madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dadaan saaxiibanahay baa horta iskaaga baray markii uu ra'iisul wasaaraha ahaana waraysi baan marka qaaday laakiin maanan sheekaysanin oo dad shakhsiyan u sheekaysta maana ahayn ka bacdi ragaan saaxiibanahay baa iskaaga baray markaasaan sheekaysanay markaan sheekaysanayna afkaartiisa siyaasiga ah baan ku qancay oo aan dareemay aniga qanaacaadkayga iyo afkaartiisa siyaasiga inay iswaafaqsan yihiin dowladdiisii mulkiilaha dowladda mar kale soo laabatay markan haddii fahad 2012 door xoogan uusan lahayn 2017 fahad soo laabtay farmaajona madaxweyne noqday oo uu ololeeyay 2012 wuxuu noqday mulkiilaha dowladda madaxweynayaal hore iyo siyaasiyiin badan iyo shacab Soomaaliyeed iyo warbaahin badan erayga mulkiilaha dowladda aad loogu adeegsaday ninka maskaxda dowladda oo ah warkiisa ku kala socoto waxa uu isagu yiraahdo kaliya ay shaqeeyaan aragtaas saad u aragtay fiiri walaalow laba arrimood waaye mowduucaas wax badan baan dad uga sheekay laakiin maanta ugu horeysa amarina public aan uga sheekeyn doono horta erayga mulkiilaha eray asluubaysan ma aha dowladda in la dhaho qof ba mulkiila ah eray yani qarannimada iyo jiritaanka ummadda iyo baaxadda dalka uu leeyahay in qof loo sheego xoogaa ma haboona waa erey arrintii ka xumahay dad mas-uuliyiin oo waaweyn isticmaaleen oo erey yani aan ku sifeyn kara waaye kuma haboona in dalka iyo dadka la dhaho hebel baa mulkiila laakiin waa cudur siyaasadda dalka muddo dheer soo hayay oo institutionadii in la qofeeyo dowladdii la qofeeyo oo la dhaho hebel waana wax nidaamka xisbiga ahaa iyo xisbiyadii siyaasadda oon hana qaadin baa qayb ka ah in marka waxa la shakhsiyeedayo taas waa mid labaad waxa waaye maxaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ugu dhawaatay haddii ay weydiinaysa dee khalad ma inaan u dhawaado hogaamiye kasta qof baa saaxiib la ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abubakar baa dadka ugu dhawaa abubakar cumar bin khadaab baa dadka ugu dhawaa marka every leader hogaamiye kastoo dunida yimaada qof saaxiib la ah waa jiraa anigana sharaf ay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu saaxiib iga dhigtay dadka ugu dhow iga dhigtay saaxiibtinimada marka laga tago hawlaha dowladda Soomaaliya ilaa min bilow ilaa min dhamaad oo siyaasiga inaad go'aanka u dambeeya lahayd go'aanka u dambeeya marna ma yeelan karin laakiin waxaan joogay institutionada lagu kariyo go'aanka marna jiif waxaan ahaa madaxa xafiiska madaxweynaha agaasimaha guud ee madaxtooyada shaqadiisa waa taqaana madaxweynaha qofka ugu dhawaa marna waxaan ahaa agaasimaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka waa qofka madaxweynaha shaqo ahaan ugu dhow oo amniga dalka iyo mustaqbalka dalka jaangoyntiisa tala kale marka Fahad Yaasiin inuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo talada iyo siyaasadda processka lagu karinaya qayb ka noqdo xilkayga keenay anu qof ahaanteeda ma keenin mulkiila ma ahayn dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shaqaalan u ahaa dowladda aniga waana uga mahadcelinaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu siiyay laba fursadood oo wadanka ugu shaqeeyo laakiin awood badan leh haddii awoodda meesha ka raadinaysa ma aqaan ama dadku ka raadinaya waxaan ku iri madaxweynuhu marka uu go'aan gaarayo institutionna dhariyaa lagu soo kariyaa go'aanka sirdoonku waa kuwa ugu muhiimsan adduunka oo dhan dhariyada marka la soo kariyo dhariyada mid ka mid ah madax ka ahaa saa darteed madaxweynaha markaan annaga u geynayna talo waxaan u geynaa wuxuu kala doorto tan iyo tan iyo tan baa jirta tan baa
tii adiga munaasab kula qaado laakiin intaasoo option jiran warbixintaana jirto marka koofiyadii uu asagu ii geliyay ee ahayd shaqadu isiiyay baa waxay keenaysaa dhariyadii wax lagu karinaya mid kamid ah ka shaqeeyo awooddaas ma la dhihi karaa Fahad wuxuu adeegsaday dad kala duwan oo meelo kala duwan jooga oo siyaabo kala duwan leh oo qaarkood ay dhibsadeen go'aamadii uu karinayay ee noqdeen ama uu soo jeediyay kuwa la qaatay oo dad Soomaaliyeed dib ay kala kulmeen dad Soomaaliyeed dib kala kulmay hadal balaaran waaye laakiin go'aan kasoo la gaaro dad baa dhibsanaya dadkii wadanka dhibaya baa laga yaabaa inay dhibsanayaan dadkii wadanka dhibaatada ku haya dhibsanaya waxa laga yaabaa go'aanadaas inaad adiga ahaan waad ku faraxsan tahay inaad saad u qaadateen aad soo jeediseen madaxweynuhu qaatay wixii ka dhalanaya inaad saas aad u aragtaan maslaxad hadee waxa aan dalka u joognay waxay ahayd in wadanka loo adeego madaxweynuhuna waa ilaaliyaha dastuurka waa ilaaliyaha danaha qaranka cid kasta oo ku kaalmeynaysana waa inuu kaalmeysto oo institutionadii dawladda ah hay'adihii kala duwanaa dawladda mudan aad baan kaaga mahadcelinaya waraysigaaga iyo waqtiga aad na siisay waxaan jeclaan inaan ku weydiiyo madaxweyne Farmaajo markii uu guuleystay waxaad noqotay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waa qofka ugu dhow sida aad hadda tilmaantay shaqo ahaan madaxweynaha horay waxaad u diiday wasiir xukuumadeed oo xasaanad leh oo baarlamaan ansixiyo oo shaqo qabta wasiir iyo agaasimo guudna way kala sareeyaan nidaamka dawliga marka laga hadlayo tii hore waxaad sheegtay inaad ka cudurdaaratay darajo ahaan waxaa sareysay wasiirka agaasimaha hoose maxaa ku kala dooratay waan ku sheegay waxaan ku iri qanaacadeeda siyaasiga ah iyo afkaartii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iswaafaqay markay iswaafaqeen marka wadanka inaan u shaqeeyana aan go'aansaday shaqadii uu ii dirsadaan qabanaya shaqadaas oo ii dirsaday agaasimaha guud ee madaxtooyada aan u noqdo ana ku qanacday waraal iyo nus baan ku ahaa waana ku faraxsanaa madaxweynahana waan uga mahadceliyaa mar walba waxaan rabaa inaan u gudbo intii xukunka aad joogteen nabad iyo nolol Fahadna uu ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada ama taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ama agaasima ku-xigeenka hay'adda saddex dawlad goboleed ayaa madaxdooda isbedel siyaasadeed ku yimid doorashooyin ka dhaceen madaxweynayaal la doortay madaxweynayaashaas waxa la aaminsan yahay adiga Fahada ee maanta aan soo fadhino inaad lahayd door xoogan oo ku aadan sida xukunka ay ku yimaadeen masax baa arintaas qayb baan ka ahaa dawladda Soomaaliyeed oo markaas jirtay oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayay anuguna aan mas'uuliyiinteedii kamid ahaa doorashooyinka dalka ka dhacay ra'yi bay ku lahaayeen qof baa la fiicnaanay qofkaas ay taageerayeen qofkaas inuu guuleysto ka shaqeynayeen marka maamulkii markaa jiray shaqadii aan hayay qayb kamid ah صح inaad dowladgoboleed farageliseen madaxweynayaal soo doorteen dawladdu aragti ka yeelatay horta faragelin ereyga la dhaho sax ma ahan anoo ajnabi ma nihin madaxda dalka aan ahayn laakiin qof madaxa lama dhaho waxba farageliyay waxaan u gudbayaa malafka shaqadaadii amniga ee NISA haddii aad ogolaato oo ay ka buuxaan dhacdooyin waaweyn oo dadka Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan aragtiyo uga haystaan hay'ad xogteedu kooban tahay macluumaadkeedu aad iyo aad dadka Soomaaliyeed xog badan uga hayn haddaad ogolaatid oo aad diyaar u tahay inaad si gabasho aan lahayn aad uga jawaabaysid su'aalaha aan ku weydiin doono waxaan diyaar u nahay malafka inaan furno soo dhow ogosha soo dhow mar haddaan waraysi ka ogolaado waa inaan ogolaado su'aalaha